السلام عليكم. aragtida dhabta ee falsafada waa maxay falsafadii ugu horeyn falsafadu waa aaminsanaanta cabiritaanka ku hadlida falanqaynta iyo isweydiinta caqliyeysan ee dabeecadaha nolosha noolaha iyo noolaha iyadoo lagu saleynayo isbedelka aqoonta iyo qiimaha iyo aragtida waa daraasada dabeecadda asaasiga ee aqoonta xaqiiqada jiritaanka gaar ahaan marka loo tixgelinayo edbinta tacliinta falsafadu waxay ka timaadaa aragtiyooyin iyo cabiritaano xikmadeysan oo bulshada iyo mid shakhsiyado kala duwan haddii aan soo xigno hadalayo oraahyo falsafada ku saabsan waxaad ka dhex arki kartaa qiimeynta iyo xaska weydiinta nolosha dhaqanka anshax iyo hirgelinta adduunka asal ahaan falsafadu waxay ka soo farxamatay dadweynihii Giriigga hore waana rugni aqooneed oo muddo ku kobciyeen garaadkooda macnaha falsafadu waa raadinta aqoonta waxayna ka kooban tahay ilaha aqoonta ee cilmiga diinta cilmiga sayniska cilmiga farshaxanka falsafadu waxay saameyn kala duwan ku yeelataa dhaqanadii anshaxyadii akhlaaqiyadkii ummado kala duwan oo dunida soo maray mawduuc kasta falsafada ku saabsan waxa laga yeeshaa doodo maskaxiisan oo aad u qoto dheer qaarkood ilaa hadda way socdaan oo grafintoodu haatan haddaynu isla eegno qaybo ka mid ah falsafada waxaa jira 7 qaybood oo loo qaybiyo falsafada waxayna kala noqonayaan sida soo socota falsafada daraasinta runta iyo xaqiiqada iyo jiritaanka falsafada daraasinta dabeecadaha iyo xadidaadda aqoonta aadanaha ama xadka aqooneed falsafada daraasinta sifaadka akhlaaqda iyo garsoorka falsafada daraasinta sifaadka iyo quruxda iyo farshaxanka falsafada daraasinta sababeynta iyo caqligalnimada falsafada daraasinta maamulka iyo siyaasadda iyo waliba falsafada daraasinta qiimaha baaritaanka dabeecadaheeda qaabkeeda iyo xaaladaheeda qaab ahaaneed haatanna aynu isla eegno oraahyo ku saabsan falsafada waxaana odhanaysaa sida soo socota